السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكود كيني صدحات رازين عشر كان عشر كي كوري واحد دقناي اسكو جين iyo markii uu dambeeyay raacinay kala jan hadaba adigoo ku deynaya isku geyntii koobaad ee uu horeysay hadaba waxaan dhiganaynaa maanta waxa loo yaqaano afartii xisaafal isku geyn isku qaybin iyo kala jar hadaba waxaan isticmaalaynaa current waxa loo yaqaano ka waxaan u bixinaynaa inuu yahay isku geyn addition inuu isku geyn waa commentigu wuu iska ignore karinaya compilerku wuxuu ku cadeynaya in casharkan isticmaashay uu yahay isku geyn hadaba haweenkan waxa loo yaqaanaa \n waa new line inuu ku sameeyo hadaba waxaan doonayaa intan ma isticmaalaya waxaan leeyahay control iyo c iyo control iyo v waxaan bedelayaa halkan minuska halka pluska ama minus ka dhigaya haddana waxaan leeyahay control iyo v anoo koobiga haysta adiga laakiin maxaa kaaga qurux inaad koodka qorto oo maxaad seed u qoraysaa sidaan aad u qoraysaa maxaan leeyahay c kolka hore waxay haysay plus bay haysay minus inta laga dhig c a minus b semicolon waxaan leeyahay print f waxaan leeyahay qorayaa tusaalahan sambe sooma sabde oo kala jara subtraction kia subtraction kaas wuxuu ku qabanayaa percentage d haye \n waa new line wayna ku samaysaa in labadii shay ay hoos dhigi karto isku geyntii kala jarkii inay hoos dhigi karto haddii kale \n aan la isticmaalin uu hoos dhigaya sidoo isku hoos dhigaya tusaalahan imika save gareey wala save gareey suga c maxay ku haysaa markii koowaad plus bay ku haysaa ibkara minus bay ku haysaa waxaan leeyahay calaamadda yar haddaan ka tago semicolonka yar ama aan kooma ka dhigo ma soo saarayo oo semicolonka yar waxa loogu talagalay terminator inuu wuxuu sheegay inuu sheegi dhamaado waay halkan waxaan u bixinayaa subtraction shan ayaan u bixinayaa kii hore halku addition ah bal maxaan in kolka sum buu ku save garaysnaa imika waxaan ka dhigayaa save as baan tagaya fileka codekii halkan dhigayo c program fileka desktop baan ka samaystay folder magaciisaan u bixiyey c program code halkaas sum bay ku qorray waxaan ku dhigayaa calculation ma kala sameynaya la isku intii baan isku darayaa calculation.c oo extensionkiisu z yahay save baan siinayaa waan dejinayaa casharka waxaan u dejinayaa mataqaanaa inuu revision yar weeyaan kolka waan hore u dhiganay sidoona waqtiguna inoogu badan habeenkii casharkii inagu horreeyay waan falaqaynay kolka waxa weeyaan inaan mataqaanaa ardaygu ku fahmo ku yar ceshado ma ugu talagalay videogan kolka haddaba balan save garayno new line ka masax subtractionkii iyo mataqaanaa sumkii isku daray uu isku dhiji hadaba waxaan doonayaa inuu kala gooyo maxaan isticmaalayaa waxa loo yaqaan \n oo kuu qabanaysa new line waayahay haddana save male haddaba calaamadda yar arrow dul joogo waa rankii waa compilerkii waayahay muxuu sameeyey labadii shay isku daray 10 iyo 12 22 kolkaa 10 iyo 12 buu kala jaray kolkaa 10 ka horeeyay oo eeda horeysay biduna way dambaysaa kolkaa minus bay noqonaysaa marka 12 laga jaro maxay noqonaysaa -2 in lacag -2 lagu leeyahay ama -2 minus bay ku soo baxaysaa haddaan eeg imika horeysiyo bida ilaa bida ta badanayso ma b halkan aan ka dhigo tusaalahan a oo kale 2 caadi ku soo baxaya save baan leeyahay compile ba taabanaya -2 waxa bidan horeysiiyey bidan horeysiiyey adiga arkaya eedana waan dambeysiyey waxa ku soo baxay labadii shay inuu kala jarayo kolkan waa 2 haddaan doonayo kala isku qaybinta intan waan ku gudaysanayaa koobi ma leeyahay fiiga maanta adiga laakiin inaad qorto waa muhiim halkan waxaan ka dhigayaa divided by shift plus 8 oo kale waa isku dhufashadii halkaas sumka maxaan ka dhigayaa waxaan leeyahay multi inay multiplication tahay ay sheegaysaa
waayahay halkan waxaan odhanayaa iyadna multiplication oo multi waan soo qabsanaya haye control waan haystaa mar walba waan sii haystaa maxaan leeyahay control c bahayd v control v laakiin adu inaad qorto waa ku muhiim divided by waaye halkaa sabka maxaan ka dhigayaa division diff in labadii jeer isku qaybinayo halkan commentigu wuxuu ku cadaynaya inuu koodhkaas yahay division diff uu yahay safe ma lehe wuu isku wada daray sheegi soo ma waa sabkii wixii isku dhex daray labadii koowaad uu kala gooyay waxaan leeyahay backslash n slash ka yar hada dadka qaar baa slash ka nuuca isticmaalay iska ilaaliya slash ka shiftiga interta sare ka sareeya ayaa taabanaysaa n daba waxaan doonayaa hadana slash ka backslash n backslash n maxaan leeyahay save garanaya wakaas wuu isku kala qaybiyey wuu isku dhuftay wuu isku qaybiyey arkaysa intii afartii xisaab walba intaas way noqdeen asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu casharkeenii saddexaad koodhkeeni saddexaad halkaasaan ku joojinaynaa oo ahaa calculation inaguna waxa weeye qof halkaasaan casharkeenii afraad saddexaad ku joojinaynaa kolka qof walba casharka soo sameeyo ka daba anigu waan copy gareynayay oo inuu videoga inagu dheeraadaan diidayay inagu qora dib u qora sameeya dadka qaar waxaa ku adkaanaysa bracketka yari quotation kaliya shift qaabo keyboardkaaga ku baadh backslash n slashka nooca kale isticmaali doona iska ilaaliya nooca kale isticmaala slashka interta dusheeda taal slashka dhinaca ujeeda waa ku tijaab wada helaysaa inti waa data type loogu talagalay wixii number integer baa loo yaqaan ma fahanteen halkaasaan ku joojinaa insha allah haddaba executionkeena wuxuu ka bilaabaysa casharkeena koowadan aan ku sheegnay mainka bracketka toornada bracketka inta u dhaxaysa ayuu ka dhacaya wixii ranku ma fahanteen halkaasaan ku joojinaa insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu